militariga dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in kaabiga ay ku hayaan degmada Jamaame oo iminka ay ku xoogan yihiin xarakada Al-Shabaab. qodobkani waxa eegaya wariyaheena Faarax Ibraahim Yacquub. gaashaanle sare Maxamed Ibraahim Boole waxa uu ka mid yahay saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku wajahan degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose, halkaas oo saraakiishu ay sheegeen in qorshahoodu ugu weyn uu yahay sidii ay ula wareegi lahaayeen shabaabka muddada dheerba xukumaya Jamaame. waraysi uu siiyay gaashaanle sare Maxamed Ibraahim Boole Radio Danan waxa uu ku sheegay in waxay soo gurguurtaanba 8 kiiloomitir oo kaliya ay ugu harsan tahay Jamaame inay xabad ay ku ridaan maadaama shabaabka halkaasi ay joogaan. ilaa maanta waxay gareen meel la yiraahdo kolan oo loogu gudbay Jamaame madar ninkii caawinta halka muxuu ahay ayaa saxatoodii aan kala soo noqonay meel la yiraahdo ambiyo oo loogu gudbay magaalada Jamaame. waxay intaa ilaa 8 kiiloomitir marka joogta Bangeeni Jamaame ku muuqata Soomaaliya maya waa ciidamada xoog dalka Soomaaliya ciidanka maamulka dowladda Jubbaland oo iskaashanaya maya ajaanib ma jirtaan ku ilaa 60 kiiloomitir ciidamada xoog dalka Soomaaliya ciidanka dowladda Jubbaland waxay halka ka howlgalay ayadoo maya waxa weeye cid aan ku socotay cid aan daro ku socotay isma celin karaan ilaahay waxaa markiisa anigu hadda ilaahay noo hiilinayo xaq baan ku soconaa dowladnimaan ku soconaa Soomaaliyamaan ku soconaa dalkaan leenahay inkastoo Soomaaliya xadka ku soo xadgudubtana waa la dagaalamana guushan annaga kale ma garan هذا كان وحوي إن عن قبلنا جبرين قلنا كعنت كله عن كلام ولنا هذا هو قصة الدوري الصومالي عالم كبير عالم كله تيجي ولا خسر الكويترو أيام إن خدنا كورينا دولة هذا هو يقول في هذا في الجامعة يحلو شيء سواء كم سوى مدرسة warkan ka soo yeeray saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku wajahan degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose oo ay isla socdaan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM qaybtooda dalka Kenya ayaa haddana bulshada ku nool degmada Jamaame ayana aan ka dhigi lahayn duulaanka ku soo socda ee ciidanka xoogga dalka ee ku soo wajahan degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose waxa wararka yeelayso Radio Danan uu sheegaya in shabaabka la fahaantooda ayana dhinacooda ciidamadooda jooga Jamaame aanay ka bixin lana sheegayo in dhinacooda xataa ay diyaar garoobeen dareen xoog leh ayaa ka muuqda bulshada ku nool degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose iyadoo labada dhinacba la sheegayo in ciidamadooda dhinacba dhinaca kale awoodooda ciidan aanay waxba isdooranin waxaana bulshada halkaasi ku nool ay ka cabsi qabaan haddii oo dagaal uu halkaasi uu ku dhaxmaro ciidanka dawladda iyo ciidanka shabaab inay dhibaato ay ka soo gaari karto bulshada halkaasi ku nool dareen xoog leh ayaana ka muuqda degmada Jamaame bulshada ku nool